dadka Tanzania bannaanka ayay ka taagan yihiin dalalka Afrika ee ay saamaysay nacaybka qabyaaladda ku dhisan iyo kala qaybinta. halkan qabyaaladda waxay ku dhowdahay mid aan jirin. markii la abuuray dalka, aabbayaashii Tanzania waxay ku dhiirigelinayeen in lagu midoobo oo la hoos tago hogaamin hal madaxweyne ah, Julius Nyerere. ma jirto cid aan ku diidi doono sabab la xiriirta qabiilkiisa. haddii qof sidaa yeelo, qalad ayuu samaynayaa. ma aha qof aqoon leh haba yaraatee, haddana waxaad u xulanaysaan inuu idin hogaamiyo. maxay tahay sababtu? ma qabiil dartiisba? wax la aqbali karo ma ahan. ku dhowaad 15 sano kadib dhimashadiisii, dad badan ayaa rumaysan inuu isagu keligii badbaadiyey Tanzania oo halis u ahayd dhibaatada qabiilka inay galaafato, taasi oo u muuqata mid qaaradda qaybo badan oo ka mid ah maanta haysata. dabcan waxaa dalka ka jira ilaa 120 qabiil oo kala duwan, midkoodna ma awoodin inuu sadbursado dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha ama heer dhaqanba. siyaasadaha waxbarashada laftoodu saamayn ayay yeesheen. horumarinta iskuullada jiifka leh ayaa macnuhu yahay in carruur ka timid meelo kala duwan ay dalka oo dhan ku daadsan yihiin, iyagoo sinnaan dhiirigelinaya, meeshana ka saaraya aqoonsiga dhinaca qabiilka iyo islahaysiinta. Ima iyo Janet Mbuguni oo ka soo jeeda qabaa'ilo kala duwan waxa ay isqabeen oo xaas ay ahaayeen muddo 10 sano ah. fikradahaas ayayna qabaan. isguursigu wuxuuna baray in aanan eegin kala duwanaanshaha meelaha aan ka soo jeedno. haddii aan qabi lahayn iyada, waxaan guursanahay qof kale oo meelo kale ka yimid. waxaa ku jira xitaa Yurub, Asia ama meel kale, mana jirto cid kala jeclaan lahayd. inta badan Tanzania weli way ka jiraan dhaqamada dhinaca qabaa'ilka, hase yeeshee looma ogolaanin qabyaaladda inay hor istaagto fikradaha kale ee aan qabiilka ku dhisnayn. waxaan rumaysanahay si daacad ah inaan si badqab ah uga soo baxnay qadka khatarta ah ee dib ugu laabashada qabiilka. waxay ila tahay intaas muddo aad u dheer ka hor laga soo gudbay. si aan la mid ahayn dalalka kale ee Afrika, danaha qabiilka saamayn kuma yeelan qorshayaasha doorashada halkan. walwalku ma aha marnaba tartanka qowmiyadaha ama qabiilka, balse waa afduubka qorshaha dimuqraadiyadda ee siyaasiyiin musuqmaasuq wada.